اسكمان من نوضبا ها وانا مقعينا مقالة مسيركي نوامحي سومالو ملقهيدي مسيركيدي قراتو مقدقي كهيانتو شيدان مريوليو منافقي اسكناردو مستقينك كتاغن بي متشا اسكمان هيا ورادنا كوي ماينا ولا لقيقينو مدوي أدنا واتي aan isku xiiqnay xalku waa federaal adigana maxay kula tahay dadka danaha Soomaal kala didinaya nicib Allah ayow daweeyo iskumaan ku daa'imi Allah ayow daweeyo iskumaan ku daa'imi adiguna xaqiiqdii dumarkeena xeerka way ku jiraan adna يا أخيو حق ما لقدومته حمر حندرتي دلك واي هيا أدنا حلالكي كدقما حلك وقلما adiguna هدان حوقات كينو دلك وحسلايا adiguna inaan xoorno qabiilkoon qaran xeerinna waaye adna maxay kula tahay iskumaana arinteedu waa maanta dalkeeda ixtiraamka dadkeeda wanaagay aragtaayo urin mayso xumaato wariyaa warramo warkood biin oo war naga siinaya shirkii Kenya ay dunidu bay isugu iimaanayeen madaxweynaheenu ka qayb galayay yaa war naga siinayo warkood biin usiga waxaan u la yaabanahay Kenya iyo unuka ma bahashi karna sheeme shir aan gelina dadkii badeena booway maaho oo 24 sac Soomaali inay jiis ka dhigaan le rabaan shirkan la sheego maxaa waa sheekada ma u fahminaani walaal shirkaas wuxuu ahaa shir dunidu ay isugu iimaanayso adduunka oo dhan lagu casuumay 25 sanana mar ka dhaca Soomaaliyana xubin bay ka ahayd madaxweynaheenu wuxuu aaday wax dalka iyo dadka badan oo ah inuu ka soo jeediyo aaraada qarannimo iyo fikirka Soomaaliya ay leedahay inuu uga tusaaleeyo qaaflo xal ugu dhiga kurbadu waa kulushahay kolku ka dhaca dambigu kariimka loo noqda kaafkii kala waxaan lahaa iskaashiga dunida guud kolkii loo tagay shirkii kulankuna Kenya yahay kalmadihii lagu wajahay kolkii lagu gaaray guul kadibna uu ebyamay dadkina ay kala tageen Uhuru Kenyatta markaa keenay hadal kale karama adigu sitaa dambaan kale yahay kobtii taliskayga iyo kor aan kugu qaabile farmaajo kale yiri kolkaas kol horata kuma ballamin waa ka diido ku yiri kaadii kala waxaan lahaa Uhuru waa soo kaco hotelku kirada iyo farmaajo uu kali u dago ku qaabilay kabalaan kaafkii kala waxaan lahaa kabuub yadi uu watiya kalmadihiisi xodxodo kolkaas oo ma uusan gelin kaadii kala waxaan lahaa bado kiiskii ka jiray kol hore meel dheer la dhigay inuu kiciyo jeclaa farmaajo yiri kolka bada kiiskeeda yaal kalaam kala kama jire maxkamadu kali ku yahay wixii ku daran ka hadal kaafkii kala waxaan lahaa madaxweynaha shirka uu ka qayb galay dumarka muhiim buu ahay Soomaaliyeed xaad ku dheefaysin dumaro ma waxa leedin yiri gurigeena jooga ha durdurina furuq haydin dile alla ninku war heede annaga idin habaari mayne waa idin duceynaynaa dal walba intuu dumarkiisa sharfa ayuu horumarkiisa la eg yahay alxamdulillah waa leedin xoog jira oo leeska kiin kufsa jira oo leedin dili jira oo leedin madaxa leedin ka garaaci jira hadii maanta leedin ka dhaafayo oo wax leedin ogolaaday alxamdulillah rabbil alamin haweenku waa la maahuran حقوق هادي هيلي رابان haweenku waa la maahuran حقوق هادي هيلي رابان haweenku waa la maahuran حقوق هادي هيلي رابان usuday shirka Kenya la ka qabadi bilaanta adduunka xuquuqtiya yalla ku hadlaayay dhari madaxweynagayna Soomaaliya may kii magalkana okay xuquuq marlamiya may kala meelaha ka gaadi shirka intaas leeyahay miswal kale jira wali waxa igu maqaalaa inuu madaxweynaha Kenya ka codsaday madaxweynaheena inuu ku qaabilo guriga looga taliyo Kenya maxaa inta raaca waa runtaayo madaxweynaheenu codsigaas waa diiday aqalka Kenya looga taliyo madaxtooyada inuu kaga qayb galo casuumaad qaran waa diiday madaxweynaheenu alla ilaahay madaxweynaheenu hadiido wax laga yeelo maaha Kenya waxaasuye waliba waa runtaa madaxweynaha Kenya wuxuu dalbaday hadii uu ka diiday inuu ku qaabilo aqalka looga arrimiyo Kenya inuu madaxweynaha Soomaaliya ku qaabilo guriga uu ka degan yahay Nairobi
kabiir weyn inaan ihiya kingiga guud baan isu qabo kor isu qaad baan lahaa kolkii aan kugu gafaa karaamadii iga bido qaalihii ii kabnaa kolkaasu iga lumayo kaydkaygii baa martay kunjeer iga raalli noqo oo labada madaxweyne midkee marti loo ahay oo dalkiisa la joogay maxaa waaba ujeedaa inaa Soomaaliya la joogo ma ujeedino madaxweynaheena masawirkiisa iyo calankeena inas meesha yaali sawa camoola ma tahay war camoola gabadhu ma ahe kaynda waaweyni meesha lagu kulmay Kenya ay ahayd laakiin madaxweynaheena marti loo ahaa aryaadaha madaxweynaheenan idinka aqaanahay arrinti ayada ahayd alaashan badan u jeeda wallahi billahi tallahi ijaaraddeer inuusan u ogolaahay saw runtaw beentam wallahi runtaw ebeey ma ka qaad inana farmaajiyo khayro waad u dhalateen mise waad u dhurateen waad u nabar adeegteen waad u dhidhiyeysaan inta garasho dheer iyo inta dhaqanka haysi inta samaha dhowrteed inta jecel dhulkooda dhalinyarihii waayo dhinacina joogtee guulaysta waa dhabe walaalkiis u daacada ninkii dhagar la doonaya xasadnimo daraaddeed qabki iyo diidda noloshiisa diirka iyo xaqii darasnimada damacu dhaafsiiyo degdeg bay daruuraha nafsigu ugu dalhooraane dabinkii uu meegaarayu dalaq yidhaahdaaye dalbalaarsigii Kenya iyo doobidii iyo faankii waxay heeg dacwada taalla iyo xukunka diidaaba dib ha loo yar dhigo iyo annagu hoos aan uga doodno iska daba wareegaas waxay nafis ka doonaanba dawlado la laaluusho iyo deeq ku bixiyaanba bilyan dollar abukaatanimo lagaga diirtaaba soo difaaca diblamaasinimo laguma daaduumin fiiladii ay diireen ayaga dib uma naafaynin dantu waxayse dhaafeen caqligu kaama diidane soo inay heshiis naga dalbaan duuga may noqonin Kenya wajeerka soo wareeg iyo wili war xumaadii amay waadan war xumaadii amay waadan waxaan idin sheegay oo kale waxa ka soo baxay kulankii ka soo baxay diyaaraddanba horta wajeer istaagaysa ma jirto toos xamar iyo Nairobi baa isugu xiran fiisaha waxaa laga daldalanayaa aeroboortka ayaa laga daldalanayaa intaa waxaa dheerayd madaxweynaha Kenya hadalku qaado baraadarta ku hayay baraada haddaad maqashiin Kenya qaadkaa ku baaray dhaqaalihina waa ka burbureen doorashana waa ku soo socota walaalow leemaahinoo mugga wagaray ka waasacan Kenya waxay wadayay webigiya weyn aryaadaha ayaamahan geeli ilaaha u gargaaray birtiya gowriciyow ka nastay haddii geeli birti ka nastay xaanoo hiliboo la cunaahe bun haddii la waayo bedelkiisa la helaa ayaanta malay dhaxdhawo aan hayn horta intii geelka arrintiisa laga xalihaayo geeli badda la cunaa miya haddaad maadda suluugto adigoo aan murmaynin dadku waa isku maan oo isku mowqifna weeyo madasha ka dhaxaysiya miiska doodda u taalle adigoo aan masuugin oo mirif ciil isla siinin ha munaafaqadayna bal markaa ka jeedi meeqaanka gobollada meel kastoo dalkeenna ah mabaadi'da dawliga federaalku maamulo mawjadaha shacabka ah mawla uu ku beero miyi iyo magaalada maantadan dhex joogay muujintood u doodaa oy matashaa iskumaan